waa subaxnimo isniina taariikhduna waxay ku beegan tahay 14 bisha 12 sanadka 2020 warkaas oo dhan saaka waxa aqrinaysa wariyeena Amaal Yuusuf Macalin cali ibraahim cabdullaahi cali suxayfa aad baad u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim markale subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhameystiran madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka cabdisitaar xaaji cali ayaa ka waramaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kulan kula qaatay guddoonka baarlamaanka Galmudug iyo xildhibaanada golaha wakiilada baarlamaanka labaad ee dawlad goboleedka Galmudug waxayna ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa looga arrinsaday marxaladda dalku uu marayo iyo culaysyada Galmudug ay kala kulmi karto doorashada Soomaaliya waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo taliyaha booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug ay iska xog wareysteen xaaladda deegaanada Galmudug iyo baahiyaha gaarka ay qabaan shacabka deegaanada Galmudug iyo in si wadajir loo sii amba qaado midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanada Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Gacal oo goobtaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay maamulka Galmudug ee uu hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor mudane madaxweyne xildhibaanadan iyo baarlamaanka guud ahaan dadaalkii dheeraay socdaalkii nabadda dib u heshiisiintii dhismihii maamulka ka soo baxay muddadii sanadka ahayd oo ay joogeenna shaqooyin badan iyo halgan badan ayay u soo galeen sidii Galmudug ay hore ugu socon lahayd xubnaha baarlamaanka Galmudug ayaa maalmihii la soo dhaafay safar ku joogay magaalada Muqdisho iyagoona kulamo dhexdhexaadina oo lagu xalinayo muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka ka waday magaalada Muqdisho caasimadda dalka cabdisitaar mahadsanid dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukuumadda Suudaan u gudbisay cabasho ka dhana dalka Kenya Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinaya warkan waxaa sii kordhaya khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa urur goboleedka IGAD si gaar ah gudoomiyaha ururkaas ra'iisul wasaaraha wadanka Suudaan Cabdalla Xamduug waxa ay u gudbisay dacwad ka dhana xukuumadda wadanka Kenya dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay Kenya ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee dalkeeda waxaana midaasi ay keentay in dawladda Soomaaliya ay cayriso danjirihii wadanka Kenya Soomaaliya u joogay halka safiirka Soomaaliya u fadhiyay magaalada Nairobi-na dalka dib looga soo celiyay wargeyska la yiraahdo The Star oo soo xigeenaya ilo ku dhowdhow madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in haddii Kenya ay sii wado faragelinta ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya ay shaqooyinkooda ku waayi doonaan in ka badan 100,000 oo qof oo u dhashay wadanka Kenya kuwaas oo ka shaqaysanaya gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliya dhinaca kale waxa uu qorshuhu yahay in 20ka bishan aan ku jirno ee December wadanka Djibouti uu ka dhaco kulan markaasi looga hadlayo khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya tani waxa imaanaysaa iyada oo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu dalkiisa ku casuumay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyada oo madaxweyne Biixina maalinkii shalay uu dalabkaasi ka jawaabay oo uu gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya haddii dawladda Soomaaliya ay qaado tallaabo lagu cayrinayo in ka badan 100,000 oo qof oo u dhashay wadanka Kenya kuwaasoo ka shaqaysanaya Soomaaliya waxaa laga yaabaa in xaaladda si weyn ay isku bedesho waxaase xusid mudan in dhanka kale 10,000 oo shacab Soomaaliyeed ah ay ka shaqaysanayaan wadanka Kenya xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi ayaa waxa ka dhaxeeya khilaaf dhinacyo badan ku saabsan si gaar ah tanbada iyo arrimo kale oo siyaasadeed mucaaradka dawladda Soomaaliya ayaa dhawaantan si weyn uga dhaliilay taliska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ololihiisa uu isticmaalayo in dalalka deriska ah uu colaad ka abuuro Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay kumaandooska Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen saraakiil al-shabaab u qaabilsanaa samaynta jaakadaha isqarxinta loo adeegsado kadib howlgal qorshaysan oo ciidanka kumaandooska xoogga dalka ay ka sameeyeen gobolka Jubbada Dhexe oo lagu dilay xubno iyo saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayay ciidanka kumaandooska ee xoogga dalka waxa ay ku dileen saraakiil dagaalamayaasha al-shabaab u qaabilsanaa sameynta jaakadaha iyo suumanka isqarxinta ay u adeegsato dagaalamayaasha al-shabaab. kumaandooska sida gaarka u tababaran ee danab ayaa degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxa markaasi ay soo bandhigeen magacyada saraakiisha lagu dilay howlgalka, kuwaas oo kale ah muxsin caliyow oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo maxamed sheekh, kuwaas oo dagaalamayaasha al-shabaab u qaabilsanaa farsameynta jaakadaha iyo suumanka isqarxinta dagaalamayaasha al-shabaab ay u adeegsadaan. saraakiil ka tirsan ciidamada danab oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalka qorshaysan oo ay ka sameynayaan qaybo ka tirsan gobolka jubbada dhexe, gaar ahaan degmada jilib oo ay sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab ay si aada ugu xoogan yihiin. weli dagaalamayaasha al-shabaabna aysan ka hadlin sheegashada ciidanka danab ee ah in la dilay 2 xubnood oo dagaalamayaasha al-shabaab u qaabilsanaa farsameynta jaakadaha iyo suumanka isqarxinta, kuwaasoo al-shabaab ilaa iyo hadda aysan ka hadlin sida ay howlgalkaasi u dhacay. muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fulinayeen qaybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe, gaar ahaan degmada jilib oo inta badan al-shabaab ay ku soo bandhigaan farsameynta waxyaabaha qarxa iyo sidoo kale weerarada ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobolada dalka. taliska booliiska degmada buula burda ayaa sheegay inay maxkamad horkeeni doonaan dad ay sheegeen in dameere ay ku gowraceen degmadaasi, hilibkiisana ay ka ganacsanayeen. cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya warkaan. taliyaha booliska degmada buula berde dhamme cabdi maxamed cali ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay dadkii ka dambeeyay dameero lagu gowracay degmadaas. taliyaha ayaa tilmaamay in falkaasi loo soo qabtay 2 qof, kuwaas oo uu sheegay in 2 dameer ay ku bireeyeen xaafadaha magaaladaas. waxa uu intaasi ku daray in 2 nin ee falkan loo soo qabtay gacanta booliska ay ku jiraan, sharcigana la horkeeni doono sida uu hadalka u dhigay. baaris dheer kadib markii aan helnay nimankii qiraalkaas aan ka qornay cadayn waxaan raadiyey meeshii ay geeyeen dameerkay bireeyeen iyo hilibkiisii. marka kaasaan hadda haynaa, waa soo bixinay, gacantaan ku haynaa inaan usoo bandhigno bulshada. hadii ilaah yidhaahdo bulshada usoo bandhignana diyaarana waan rabnaa. 2 nin waay walala waxay gowraceen oo hadda la arkay waa 2 dameer. hadda intaan gacanta ku hayno, inkastoo hadda baaristii weli socoto, waxaan ku hayno oo cadayn oo cad waa 2 dameer. ma jirto labadooduba hal waqtiyaa la beriyey, waqti dhexaa la beriyey markii jiif la galay kadib waxaana lagu beriyey xaafadaha magaalada xaafad ka mid a. labadoodaba hal goobaha lagu beriyey. waxay kala baxeen hilibkii qaybaha dimanka iyo ay ka gurteen ay ka qaateen 4 adin, intii kaleetana way uga tageen soo baraysan dameerkii meesha. dantoodu ahayd inay ku kalluumaystaan. horta nimankaan waa niman dembiilayaal oo dembiyay galeen, waa dembiilayaal mar walba in garsoorka loo horgeeyo, maxkamadda loo horgeeyo waaye. goobaha xoolaha lagu iibiyo ayaa ilaa iyo haatan aan ka jirin wax dhaqdhaqaaq ah tan iyo markii ay soo ifbaxday arrintan, iyada oona dadka ku nool buula berde aysan suuqyada xoolaha ee degmadaasi aysan waxba ka iibsan. way jirtaa waqtigii wax dhaceen ilaa waqtiga hadda la joogo inta u dhaxayso. ma filaayo in neefka gurigiisa nin ka daraysto hoosugu dareeyo waa gooni, laakiin in xoolo kale laga cunay ma islihi. sababtay tahay hilibkiibaa tuuran, geeli la qalaya tuuran, arigiibaa tuuran, dad cunta aan haysan jirino in lagu soo dhex daray in lagu dhex darina qoftaasa sheekaya ka muujista. tani ayaa caqabad kale oo hor leh ku ah shacabka buula berde oo in ka badan 7 sano ay go'doon ku hayaan kooxda al-shabaab. cali mahadsanid. xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ayaa heshiis ka gaaray khilaafka dhanka waxbarashada ee u dhaxeeyay. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya. kadib khilaaf adag oo in muddo ka dhex jiray wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo tan maamulka Puntland, isla markaana dhowr sano ardayda maamulka Puntland aysan ka qayb qaadan imtixaanka dugsiga sare ee dowladda Soomaaliya, iyagoona ardayda Puntland wasaaradda waxbarashada ay u diiday inay siiso shahaadada dugsiga sare, ayaa arrintaasi waxaa laga gaaray xal waara sida ay wada shaaciyeen labada wasaaradood. kulan ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxaa lagu heshiiyey in ardayda deegaanada Puntland ay wasaaradda waxbarashada u fasaxdo shahaadada dugsiga sare oo muddo 2 sano aysan qaadan. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa akhriyay qodobada lagu heshiiyey.
shir aan isugu nimid oo aan ku falanqeynaynay arrimo muddo dheer soo jiitamayo khilaaf wasaaradeed oo kaga hadlayay arrimaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ahaa ayaa waxaan ka kulannay oo si fiican oo wadajir ah looga wada hadlay wasiir Carab iyo wasiir Jaabir iyo wasiir Cabdullaahi Rooble iyo wasiir Bashiir oo runtii falanqeyn dheer la galay falanqeyn dheer kadib waxaa runtii is-afgarad buu ku soo dhamaaday shirki waxaana ka soo baxay is-afgaradkan soo socda in ardayda Puntland ee dhamaysatay dugsiga sare loo fasaxay shahaadadii dugsiga sare ee federaalka ah oo laga heli doono xarunta dhexe ee wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland iyo xarunta dhexe ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya in wasiirku uu ilaamiyay shirweyne la isugu imaan doono dhammaan maamulada dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ee dawladda federaalka wasaaradda waxbarashada shirkaas oo laga hadli doono siyaasadda waxbarashada xeerka dhismaha gudiyada imtixaanaadka manaahijta iyo kormeerka iyo arrimaha khuseeya waxbarashada iyo sidii loo horumarin lahaa iyo sidii wada shaqayn fiican loo yeelan lahaa waxay labada wasaaradood isla qaateen in ardayda Puntland loo sii daayo shahaadadooda shahaadadooda dugsiga sare ee heer federaal taasoo wasiiradu ay isku afgarteen afgarkaasna ka soo baxay saddexda qodob ayaa lagu heshiiyay si waafaqsan iyo in insha Allah shirka dib la isugu imaan doono waxyaabaha dhiman lagu dhameyn doono muddada uu xilka hayay wasiirkii wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ardayda Puntland waxa aysan qaadan shahaadada dugsiga sare iyadoo wasiirka uu ku micneeyay arintaasi in ardayda Puntland aysan ka qayb qaadan imtixaanka dawladda ay qaadayso ee dugsiga sare dowladda dalka Kenya ayaa ka digtay in weeraro ay al-shabaab ka fuliyaan dalkeeda inta ay socdaan dabaaldegyada ciida Christmaska Hanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinaya warkaan xukuumadda Kenya ayaa sheegtay inay ka digayso suurtagalnimada weeraro dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geystaan Kenya maalmaha lagu guda jiray ciida Christmaska ee sanadka cusub booliska waddanka Kenya ayaa bayaan soo saareen waxay ku sheegeen in tiro badan oo al-shabaab ay gudaha u soo galeen Kenya saacadihii u dambeeyay si ay weeraro uga geystaan deegaanada ku tadsan xadka Soomaaliya iyo Kenya bayaanka ka soo baxay booliska waddanka Kenya ayaa lagu sheegay in 40 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay bartilmaameedsan doonaan magaalooyinka deegaanada Amuun iyo magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee xadka Kenya iyo Soomaaliya booliska ayaa dadka ku nool deegaanadaasi waxay ugu baaqeen inay muujiyaan feejignaan dheeriya lana shaqeeyaan ciidanka ammaanka saraakiisha booliska dalka Kenya ayaana shacabka ku dhaqan deegaanada xadka ugu baaqay in markaasi ay ka feejignaadaan weerarada al-shabaab ay doonayaan inay ka fuliyaan gudaha Kenya ayaa bilihii u dambeeyay sii kordhisay feejignaanta iyo walaaca ay ka qabto al-shabaab waxa ayna ciidamo dheeraad ah marba marka ka dambeysay geysay soo dinta labada dal al-shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay weerar khasaare badan dhaliyay ka fuliyeen deegaano horle oo ka tirsan dalka Kenya hanad mahadsanid ugu yaraan 300 oo arday ayaa weli waxaa laga raadinayaa dhulka miyiga ah ee ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Nigeria kadib markii habeenkii Jimcihii ay iskuul dawladda leedahay oo ku yaala gobolka Katsina ay weerareen dable hubeysan dawladdu waxay sheegaysaa inay dib u heleen in ka badan 333 arday halka welina ay si weyn u soconayaan baadigoobka loogu jiro helitaanka inta kale hartay wararka qaar ayaa sheegay in ardayda qaar ay gacanta u galeen kooxdii weerarkaasi soo qaaday ma jira ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi ardada badan lagu laayay dawladda Nigeria ayaa ciidamadii ugu badnaa u daabushay gobolkaasi welina waxaa dhacaya weerar ka dhana shacabka dalkaasi madaxweyne Maxamedu Buhari oo falkani ka hadlaya waxa uu sheegay inay tani tahay wax aan loo aqbali karin laamaha ammaanka dalkaasina waxaa looga fadhiyaa inay jawaab shacabka ku qanci karaan ay la yimaadaan